Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa Soomaali Banaadir TV. Qodobada wararka aan kusoo qaadan doono waxaa ka mid noqonaya Al-Shabaab oo la wareegay deegaanka Farlibaax. Waxaa kaloo aad ku dhegeysan doontaan barnaamijka dowladda oo si cad u sheegtay in aan la sii doonin wax shahaado ah ardayda Puntland. Waxaad kaloo aad ku dhegeysan doontaan Puntland iyo IGAD oo kulan ku yeeshay Nairobi. Musharaxiinta Galmudug oo soo saaray 7 shuruudood si ay uga qayb galaan doorashada. Dowladda Soomaaliya oo ka hadashay geerida ku timid Allah u naxariistay Daawud Cali Masxaf. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku dhegeysan doontaan barnaamijka inta uu socdo. Intaasina waxay ahaayeen qodobada warka ugu door korona iminkana kusoo dhawaada isagii oo fidsan. Wararka naga soo gaaraya deegaanka Farlibaax oo 45 kiiloomitir u jirta magaalada Beledweyne ayaa waxa ay sheegayaan in Al-Shabaab ay saaka qabsadeen deegaankaasi. Iskahorimaad kooban ayaa dhex maray ciidanka dowladda iyo ururka Al-Shabaab, waxaana la sheegay in ciidanka dowladda ay iskaga baxeen deegaankaasi. Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa xaqiijiyay in dagaalyahano hubeysan oo ka tirsan xarakada Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan deegaankaasi. Ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa wada abaabulo ay ku doonayaan in ay dib ula wareegaan Al-Shabaab deegaanka ay ka qabsadeen. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo si cad u sheegtay in aan la sii doonin wax shahaado ah ardayda Puntland. Cabdulaahi Goodax Barre, wasiirka waxbarashada Soomaaliya, ayaa sheegay in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay siin doonin shahaado dugsiga sare ah haddii aysan galin imtixaanka dowladda dhexe ee Soomaaliya ardayda deegaanada Puntland. Waxa uu si cad u sheegay in Puntland haddii aysan ka qayb galin imtixaanka dowladda federaalka in ardaydooda aan la siin doonin wax shahaado ah, sidaas darteedna loo baahan yahay in ay isku filnaato. Waa hagaag daawadayaal, weli waxaynu dhexda ugu jirnaa barnaamijkeeni. Iminka wararkii ugu dambeeyay dhulgariir xooggan oo ku dhuftay bariga Turkiga. Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in dhulgariir xoog badan uu ku dhuftay bariga waddanka Turkiga, halkaas oo ay guryo ku soo dumeen ayna ku dhinteen ugu yaraan 18 qof. Suleymaan Soylu, wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga, ayaa sheegay in 500 oo qof oo kale ay dhulgariirka ku dhaawacmeen. Waxa uu sheegay in kooxaha gurmadka degdega ah ay baadigoobayaan 30 qof oo ku xayiran burburka hoostiisa. Dhulgariirka ayaa ku dhuftay bariga Turkiga abaare 9kii fiidnimo ee xilliga dalkaasi, waxa uuna dhulka ku daray dhismooyin iyadoona la arkayay dadka deegaanka oo ku cararaya wadooyinka. Boqolaal shaqaalaha samata bixinta ayaa lagu daabulay gudaha iyo banaanka deegaankaasi. Waxay isticmaalayaan cagaf iyo agabka korontada iyo xitaa gacmahooda si ay u soo samata bixiyaan dadka ku xayiran dhismooyinkaasi burburay. Geesta kale, musharaxiinta Galmudug oo soo saaray 7 shuruudood si ay uga qayb galaan doorashada. Musharaxiinta madaxweynaha Galmudug ee kala ah Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowaa, Cabdi Dheere, Kamaal Kuutaale iyo Cabdulaahi Weliye ayaa warmurtiyeed ay wadajir u soo saareen kaga hadleen hanaanka doorashada Galmudug. Musharaxiinta ayaa soo saaray sida ay suurtagal ugu noqon karto si ay uga qayb galaan doorashada muranka badan ka taagan tahay, iyaga oo soo bandhigay ilaa iyo 7 shuruudood. Waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in maamulka Ahlu Sunna uu qayb ka noqdo hanaanka dhismaha maamulka Galmudug si loo xalliyo dhibaatooyinka ka taagan. Waxa ay sidoo kale sheegeen in loo baahan yahay helitaanka guddi doorasho oo madax bannaan iyo korjoogto saddexaad, ayuu yiri. War hadda soo dhacay ayaa sheegaya booliiska Hirshabelle oo gacanta ku dhigay aabe wiilkiisa dilay. Taliyaha ciidanka booliiska magaalada Jowhar, Maxamed Siyaad Cali Canjeex, ayaa sheegay in ciidanka booliiska ay gacanta ku soo dhigeen aabaha wiilkiisa dilay oo laga qabtay tuulo hoos timaada Jowhar. Waxa uu sheegay in shalay markii uu dilka geystay uu goobta ka baxsaday, isla markaasna howlgal ay sameeyeen ciidanka gacanta lagu soo dhigay. Cismaan Ibraahim waxa uu shalay galab wiilkiisa curadka ahaa oo la oran jiray Ibraahim Cismaan uu ku gowracay Jowhar, isla markaasna uu naf baxay. Falka naxdinta leh oo ka dhacay laanta Faanoole ee xaafadda Horseed degmada Jowhar ayaa waxaa isla goobta ku geeriyooday Ibraahim,
lama oga sababta keentay in aabbaha dhalay wiilka dhalinyarada ah uu mindi ku dilo, waxaana falka uu yahay mid ka mid ah falalka naxdinta leh ee soo mara magaalada Jowhar, xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle. Waa hagaag daawadayaal dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeennii. Waxaad kala socoteen Soomaali Banaadir.